السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركلة يكون انت وناكسن ومحمد سيد كسودة وهذا الجانل كيا برو عالمك runtii maanta waxaan rabaa inaan dulmaro ama ku faahfaahiyo vlogga kani electricianka ama shaqooyinka electricianka ee Canada sida fursadaha ay u leeyihiin iyo qaabka ay yihiin iyo shuruudaha la isaga baahan yahay. mid ka mid ah asxaabta ama nagu xiran ayaa qaybta commentiga wuxuu ku soo weydiiyey inaan ka soo hadlo vlog ka sheekeynaya electricianka ama sida muxuu ahaa dadka ka shaqeeya korontada fursadaha ay ka heli karaan muxuu ahaa Canada iyo shaqooyinkooda iyo mushaaraadkooda suu yahay ayuu isoo weydiiyey walaal ka mid ah asxaabta nagu xiran. inkastoo aan kasoo daahay xogaa mashquul iyo howlo awgood waxaan jeclaystay maanta inaan vloggaas aynu ku faahfaahiyo halkan mar kale nagu soo biir haddaan ugu cusub tahay oo channelkeena bara caalamka subscribe like share asxaabtaadana gaarsii wixii su-aal talo nagula wada qaybta commentiga mahadsanidin. vlogga maanta waxaan ku dulmari doonaa fursadaha shaqo ee electricianka ka jira Canada iyo talooyin muhiim ah ayaan soo dulmari doonaa. inta aan vloggan dulmarayo waxaan kala qaadi doonaa ama waxaan ku dulmari doonaa dhowr qodob. qodobka koowaad waxaan ka dhigi doonaa muxuu yahay ama waa maxay electricianka Canada, maxay tahay shaqada electricianka Canada ee ka jirta. qaybta labaad waxaan dulmari doonaa fursadaha shaqo ee electricianka qofka electricianka ama korontada soo bartay. qodobka saddexaad waxaan ka dhigi doonaa mushaar intee ayaa lagu qaataa electricianka. qodobka afraad waxaan ka dhigi doonaa shuruudaha la isaga baahan yahay si aad u noqoto qof electrician ama shaqadaas aad u hesho shuruudaha la isaga baahan yahay ayaan dulmari doonaa. qodobka shanaad wuxuu noqon doonaa sida loo bilaabo marka ugu horeyso shaqada electricianka. qodobka lixaad waxaan ka dhigi doonaa talooyin dahabi ah oo aan ku saabsan electricianka iyo dadka meheradaas leh sida ay uga faa'iidaysan karaan. mar kale iyo kulanti wanaagsan. haddaan ugu cusub tahay fadlan nagu soo biir. ma ogtahay in electricianka Canada uu maaragtay leeyahay fursado badan ee qofka soo bartay saacidaya inuu maaragtay lacag fiican ka sameeyo shaqo fiicanna ka helo. marka ugu horeyso si aad u noqoto qofka ka shaqeeya electricianka ama positionkaas electricianka si aad u hesho oo professional ah u noqoto waxaad u baahan tahay inaad xirfado la timaado. xirfada waa inaad aqoon u leedahay aad soo barataa macnaha waana xirfad looga baahan yahay Canada baahideedana aada u jirto. magaalooyin badan ma ahan hal gobol keliya ama hal province keliya, magaalooyin badan ayaa shaqooyinkaas ka bannaan yihiin fursadahaasna waa ay ka jiraan. marka aad tahay qof electrician ah sida meelaha dhismooyinka, xarumaha dowladda, shirkadaha gaarka loo leeyahay, private propertieska iyo ama guryaha khaaska loo leeyahay, intaba waa ay ka jirtaa baahidaas electricianka. fursadaha shaqo ee electricianka markaan dulmarno waxaa ka mid ah shaqooyin badan ayaa jira sida muxuu ahaa hadda aan soo sheegnay oo kale muxuu ahaa rental houseska ama rental unitska oo kale sida guryaha caadiga loo kiraysto kale, commercialska oo kale meelaha ganacsiyada ama dukaamada ama meelaha buildingska caadiga ah waa ka jirtaa baahidaas. shaqooyinkaas waa looga baahan yahay waa laga qabtaa. industrialska oo kale sida meelaha warshadaha iyo kambaniyada oo kale ayagana baahidaas waa ay ka jirtaa. waa meelaha looga shaqeeyo waa dadka ay u baahan yihiin electricianka wayna qaataan dadka. mar walbana demandskeeda ama dalabkeeda aad ayuu u sareeyaa muxuu ahaa electricianka. mushahar noocee lagu qaataa marka electricianka si aad maaragtay uga shaqeyso. electricianka waxaad maadaad electrician aad tahay ama aqoontaas aad leedahay khibrad sarena aad hore usoo lahayd waxaad qaadan kartaa saacadii inta u dhexeysa $20 ilaa $50. waxay ku xiran tahay hadba khibradaada iyo aqoontaada iyo waayo-aragnimadaada shaqo ee hore aad uga soo shaqaysay ay kusii xiran tahay. mar walba khibradaada ay sii sareyso oo shaqooyinkan muddo aad uga soo shaqaysay mushaharkaaga wuu sii sare kacayaa. mararka qaarna waxaa way ka badan tahay inta aan hadda aan kusoo xusnay meeshaan $20 ilaa $50 oo hadba iyadoo ku xiran khibradaada. laakiin si aad u noqoto nin ka shaqeeya electricianka ah waxaa jira shuruudooyin la rabo inaad soo buuxiso. shuruudahaas waxaa ka mid ah waa inaad haysataa training ama waxaweye apprenticeship waa inaad haysataa. waa inaad nin soo maray training ama licence waa inaad haysataa oo muxuu ahaa oo ruqsad ah oo adiga inaad aqoontaas leedahay muxuu ahaa lagu approve gareeyey. si lamida
gobol kasta uu ka duwan yahay gobolka kale ama provinsiyada Canada way ka duwan yihiin mid kale. Safety certificate waa inaad haysataa mar haddaa electrician ka shaqaynayso, waa inaad safety certificate waa inaad wadataa, waa muhiim ayadana. shuruudaha waxaa ka mid ah kow waa inaad muxuu ahaa training aad soo martaa ama tababar soo martaa ku saabsan muxuu ahaa electricianka. waa inaad laysan wadataa oo ruqsad aad haysataa inaad ka shaqayn karto. waa inaad haysataa safety certificate shahaadada oo muxuu ahaa safetyga ama badbaadada waa inaad haysataa, waayo safety la-aan kama shaqayn karta electricianka. waa meelaha waa shaqooyinka keeni kara dhibaatooyin ama muxuu ahaa ka imaan kara dhimasho ama haddii muxuu ahaa aadan safety lahayn waa inaadan maaragtay waan lagu ogolaynba inaad ka shaqayso. laakiin waa inaad wadataa shahaadooyinka ama shahaadada safetyga ama badbaadada. si lamid ah sida aad u bilowdo markii aad intaas soo dhamaystirto, hadaad laysan haysato, training soo martay ama tababar soo martay, safety certificate-kana aad wadato, si aad u bilowdo kow waxaad u baahan tahay helper ama inaad noqoto muxuu apprentice inaad noqoto. kow waxaad ku bilaabaysaa qof assistance ama caawiye ah si aad hawsha markaad gelayso. markaad soo gasho ugu horreyntiiba tops maaragtay level kama bilaabayso ama manager ma noqonayso. waa inaad helper aad noqota ama caawiye aad noqotaa. baro codeska Canada oo kale waa inaad barataa. samay networking waa inaad samaysataa, waa inaad connection samaysataa. si lamid ah ha dooran shaqo sahlan oo mushahar yar ah. shaqada hadba waxay ku xiran tahay. shaqada markay yar tahay mushaharkeedu wuu yaryahay, shaqada markay culus tahay mushaharkeedu wuu badan yahay. marka haddaad rabto inaad mushaar fiican hesho marka ugu horeyso aad gelayso ama helbarka aad noqonayso kale, ha dooran shaqo sahlan waayo mushaharkeeda ayaa yar. si aad maaragtay mushaar fiican u hesho oo xirfad fiican aad u barato, shaqooyinka adag waa inaad doorataa oo xirfadahaaga waa inaad horumarisaa. waa inaad samaysaa saaxiibo badan oo muxuu ahaa ku caawiya howlahani. dadka muxuu professionka khibradda leh oo muddo soo shaqeynaya waa inaad asxaab ka dhigataa, connection la samaysataa. si lamid ah mar walba waa inaad barataa wax cusub. marka aad shaqaynayso helbar aad shaqaynayso, isku day maalinba maalinta ka dambeysa ama mar kastaba inaad barato xirfad cusub ood aqoontaada sare usii qaado. kulama aqoontaada sare usii qaadid xirfadaadana ay kobacdo, mushaarkaagana wuu kobcayaa. ugu dambeyntii haddii aad tahay qof electrician ka soo bartay, Canada waa meel fursado badan leh, laakiin waa inaad muxuu ahaa dadaal muujisaa oo muxuu ahaa dadaalkaaga aad laba laabtaa. markaad shaqaynaysana waa inaad sii horumarisaa aqoontaada, xirfadaada waa inaad sii kordhisaa oo markaad xirfadan taqaano shaqaynayso inaad sii sare u qaadaa si mushaarkaaga u bato, adigana muxuu ahaa promotion u hesho, levelkaagana sare u sii qaado. marka vlogan asxaabta ayaa mid kamid a iga soo codsaday electrician aan kasoo hadlo, waana soo koobay. muxuu ahaa haddii wax su-aala kasoo baxaan qaybta commentiga noogu reeba, halkan ayaan kusoo gabagabayn doonaa. mahadsanidin.